horta anigu waxaan ahaa Cabdi Ciise dadkii ololaha weyn ku qaaday ee social media aadka uga dagaalamay neef baan u soo galay laakiin Soomaalidu been sheegtaa been ma mahmaahdo hore waxay u yiraahdeen haddaad aragto qof caloosha kor looto ilaa aadkii kale aragtana ha garha qaadi Cabdi waxaan qirayaa meel reer la sacanooda waniga been ugu barateen anoo laba qof iska dhiga miyaad barateen Cabdi waxaan qirayaa ragga Soomaaliyeed ninka ugu gobsan uu yahay ilaa ya saacada ay joogno Cabdi Ciise ceeb iyo waxaan ku talaabo xun u qaaday ma hayno warku hal dhinac Cabdi oo sacanooda kugu maydhay xarunta daraawiishta kugu maydhay gobolkii garaadida kugu maydhay aniga ahaantii ku siiyay Cabdi Ciise waa boqor inuu jannada galayo inuu qof wanaagsan yahay iyo inuu yahay ninka ugu boqorsan ragga Soomaaliyeed inta baan aqrayana wariga laba qof sar maroo nafteeda ka qaybshay waxaan ku soo dhawaynayaa walaalada saaxiibada waftiga Puntland iga timi Kennedy Maxamed Khaawi Xabiib Faarax umal khayr inay halka soo istaagaan oo kulmadooda dhahan reer Puntland magaaladeedii caasimadeedii bartii aan deegaanka deegaankayguna ahaa way soo dhawaynayaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكسن آد أيام وجوم هالعلنا جودهان غير صول خاصة وحنا رواسي حش بدي كشرتو إن وجو محمد هالعلي ولا في ميز بوجه ويدو لهيد سبب تاني عاو أن لاسعانا كده احتاجنا هاي سيدا دكتورين دتكو كلام ملوية system institution kala duwan bay taageeraan taas ceeb ma laakiin eheliyad wada dhalasho iyo dhiig baa inaga dhaxeeya taasaan marna ii diideen inaan laascaanay maado ehelkay baa jooga tolkay baa jooga 5 sano baan garow joogay oo laygu lahaa liin baa lagu cabsiinay hadda halka tagtay caawal liintii maca diyaar baan u laascaan dhex jooga sharaf iyo karaama ii tahay waxaan reer laascaano u sheegayaa in ay Soomaalida kala dheer yihiin fiimo Yuusuf Quuche بشر وناكسن صاحب قف جبه دمر بيتاي لكن رجع وحلقة يبستمين سلاح أن حماة لهين أن عقدة لهين أن حاسد هين أن جنمو كل هين وحصار كي سوريا ده أن نجا برناي توانسنا صاحبنا إنه أمريكان شوقي دروا أن كبرتي وحواه وضعنا ميسبا وضفرسناي يدا هالكاي كنتي ريرتل كي وجبينا كراميس تدتكم وضعيستان فيهم وكله بدن baa ila socday agaasime umul khayr cawad oo garanaysaan wanada TV-yada ugu khatarsan waliba Soomaaliland ka shaqeeya MMTV ay agaasime ka tahay Puntland waxaana la socotay gabar Naciima la yiraahdo iyaduna xogayaha ururka Mahab Suxufiyiinta Puntland waxaana la socday Khaawi dad badan baan noohayna kuwa badan baa magacadooda rabeen la sheegay laakiin anu Xabiib baan wada taagnahay waxa la qaban karaa iska yar halkani waa laascaano waa dadkayagii waa ehelkayagii waa xigtadayadii maamulkii systemkii kala dambeynta ka jirta kama soo horjeedno laakiin inaan nimaadno wax noo diiday garan mayno walaalayaal aad baan farxad noogu tahay inaan idin nimaadno idin salaano idin la joogno hadee waxa weeye joojina mayno hal midna waa idin sheegaya laascaano sidii uu sheegay muxuu ahaay toolo walaalkay Maxamed Khadar oo iga horeeyay ama sayga Sagal Mustafa qolada daaroodka dhanba macaan meesha iska jecel baan u maleynaa aniguna hurdo wanaagsan